Marka laga yimaado nooca qoriga loo yaqaano AK-47 oo ah mid ka mid ah summadaha ugu caansan uguna badan maanta ee loo adeegsado dagaalada kala duwan ee ka dhaca dhammaan daafaha adduunka oo dhan, sida dagaalada Bariga Dhexe, dagaalada ka dhaca Waqooyiga Afrika, ayaa waxaa ku soo xigta summadda ama calaamadda shirkadda Toyota oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan dunida ee soo saara baabuurta kala duwan. Ayaa markii ugu horreysay soo ifbaxday kadib markii ay gawaari badan oo ay iska leedahay shirkaddan Toyota sida nooca loo yaqaano Toyota Hilux iyo Land Cruiser ay shaashadaha warbaahinta ka soo muuqdeen, iyagoo ah kuwo lagu hubeysan yahay loona adeegsanaya dagaaladii waqtigaasi ka socday dalalka kale ah Ciraaq, Suuriya iyo weliba dalka Liibiya. Sidoo kale 1980yadii, shirkadda Toyota ayaa si weyn uga soo dhex muuqatay colaad hubeysan oo u dhexeysay dalalka kale ah Chad iyo Liibiya. Dagaalkaasi oo waqtigaasi loogu magac daray dagaalkii Toyota, ayna kula jiraan ciidamadii uu hoggaanka u hayay Korneyl Qadaafi oo waqtigaasi ka tirin jiray dalka Liibiya. Askartii xilligaasi ka socotay dalka Chad waxay ahaayeen kuwo adeegsanaya nooca gawaarida ay soo saarto shirkadda Toyota sida nooca loo yaqaano Land Cruiser iyo nooca loo yaqaano Toyota Hilux si ay waqtigaas u helaan dhaqdhaqaaq dhan ah dalka Liibiya. Sheekadan oo loogu magac daray dagaalkii Toyota waxay soo bilaabatay 1927 miilaadiga, kadib markii dowladdii Liibiya ay waqtigaas ay gacanta ku dhigtay dhul ku yaala xadka ay la leedahay dalka Chad, iyadoona arrintan u adeegsatay shuruudo daahsoon. Dagaalkaasina waxa uu ku soo dhammaaday guuldarro ba'an oo ka soo gaadhay dalka Liibiya, waxaana waqtigaasi dalka Liibiya ka luntay qalab militari oo lagu qiyaaso $1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka iyo weliba 7,500 oo askari oo lagu dilay dalka Liibiya. Marka la barbar dhigo dalka Chad oo waqtigaasi laga dilay 1,000 askari oo kaliya. Sidoo kale dagaalkii Sofiyeedka ee ka socday dalka Afghanistan, xitaa ciidamadii Sofiyeedku ma aysan nacbanaan jirin tiknoolajiyadda hantidhawrka ee shirkadda Toyota, waxaana waqtigaasi jiray sawirro kala duwan oo ciidamadii Sofiyeedku sida ciidamada gaarka ah ee loo yaqaano Spetsnaz oo ah ciidamo si gaar ah u qalabeysan ay ahaayeen kuwa adeegsanaya gawaarida shirkadda Toyota sida nooca loo yaqaano Toyota Hilux iyo nooca loo yaqaano Land Cruiser, kuwaasi oo lagu soo rakibay hubkii ay adeegsan jireen ciidamadii Sofiyeedku waqtigaasi. Intii lagu jiro sagaashameeyadii horaantii qarniyadii hore, farsamada shirkadda Toyota waxay bilaabatay inay ka soo dhex muuqato isku dhacyo fara badan oo ka dhacay dhammaan daafaha caalamka oo dhan, uguna caansanaayeen qaaradda Afrika ilaa iyo Bariga Dhexe. Waxayna waqtigaasi shirkadda Toyota ay heshay kaalin dhinac waliba ah ahaana isku dhacyo dhaqdhaqaaq oo kala duwan, inkastoo dowlado badan oo ay ku jirto dowladda Mareykanku oo ay dhowr mar farta ku fiiqeen astaanta baabuurta shirkadda Toyota ayna ku soo eedeeyeen tirada xad-dhaafka ah ee baabuurtooda oo markaasi gacanta ay u wada gashay argagixisooyinka, jabhadaha iyo weliba ciidamada kala duwan ee militariga dhammaan daafaha adduunka oo dhan, uguna caansanaayeen argagixisooyinku iyo jabhaduhu, kuwaasi oo si aan xad lahayn u adeegsan jiray baabuurta shirkadda Toyota ilaa maantan u adeegsadaha. Sidoo kale waxaa jira isweydiimo tiro badan ahaana sida argagixisooyinka iyo jabhaduhu ay ku helaan gawaarida soo saarta shirkaddan Toyota, waxaana ilaa maanta laga jawaabi karin sida xad-dhaafka ah ee argagixisooyinka iyo dhammaan jabhaduhu ay ku helaan gawaarida shirkadda Toyota. Waxayna shirkaddan Toyota ay ka mid noqotay shirkadaha soo saara baabuurta iyo weliba sida xad-dhaafka ah uga soo dhex muuqda dagaalada, looguna isticmaalka badan yahay dhammaan daafaha adduunka oo dhan.